kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilhaantiinba meel walba aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan soo dhaweyn loo sameeyay gudoomiyaha xisbiga SANU oo loo yaqaan Somali National Union oo dabcan kamid ah xisbiyada ugu da'da ah dalka Soomaaliya. xisbiga SANU waxaa la aasaasay 1943 haddaba munaasabad ka dhacday waqooyiga magaalada London oo lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee xisbiga SANU mudane Shariif Maxamed Saydi ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galeen dad mas'uuliyiin ah oo waxgarad aqoon-yahano iyo waliba culamaa u diin oo isaga kala yimid magaalada London iyo waliba gobolada ku hareeraysan. haddaba xisbiga SANU waxaa gudoomiye Shariif Maxamed Saydi loo caleemo saaray bishii March ee sanadkan aynu ku jirno kadib markii uu geeriyooday Allah u naxariistay gudoomiyihii xisbigaasi muddada dheer hayay Allah u naxariistay waa Dr. Rajs. munaasabadan oo ka dhacday xarunta Bravanes Center ayaa waxaa sidoo kale kala soo qayb galay fanaanka caanka ah Axmed Naaji Sacad iyo waliba fanaaniin kale. gudoomiyaha markii uu soo galay goobta munaasabada ka socotay ayaa waxa halkaasi laga qaaday hees wadani ah oo uu ku luqeynayo Axmed Naaji Sacad iyo fanaaniinta kale ee Banaadiriga. قومية حبنادري وديدي بانهاي في الأورمان موضري خير لين كتليناي caawa dareenkayga shucuurtaydii isbedel weyn ayaa ka muuqata sababtoo ah waxay tusaysaa midnimada isku duubnaanta iyo wada shaqaysiga ka dhaxeeya jaaliyadda reer Banaadir meel kastoo ay joogaan. tusaale waxaa caawa inoo ah go'aankii Soomaaliya laga soo gaaray ee walaalaheenii jaaliyadda reer Banaadir ka soo gaareen Muqdisho ayaan caawa halka ku taageeraynaa. taasina waxay tusaysaa midnimada shacabka reer Banaadir. waxaa dhammaan idinku mahadnaqaya dhammaan walaalahaygii dhammaan dadka xafladani isku soo habeeyay oo muddo dheer soo qaatay dadkan isku keenay dhammaantiin waad mahadsantiin. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dadka caawa halka ka soo qayb galay xafladan sharafta leh ay soo sharfeen xafladani ay qiimeeyeen iyo qadariyaan ay siiyeen xafladan loo sameynayo walaalkoodii oo lagu soo doortay Muqdisho.
intaasi kadib waxaa bilaabatay khudbadihii iyo weliba ka taariikhaynta xisbiga SANU oo runtii ka mid ah xisbiyada da'da ah ee Soomaaliyana si aad loogu yaqaan waxaana qaar ka mid ah mas'uuliyiintii iyo waxgaradkii halkaasi ka hadashay hadaladooda ka mid ah waxaan filayaa in Abuukar Maxamed Ali Baana in warkii uu dhameeyba waxa ay haraan dhaaba iska yarba sawaad uu maadsan bogaadintii iyo dareenkiisii isla maraantii dareenkii inta meesha ku timid oo cabiray waxaan filayaa intaas wax kale laga yiraahdo waa iska yartay hasaate haddaan shakhsi aan u hadlo Sheekh Maxamed Saydi inta yaraan ka ogahay haddaan wax ka sheego waxaan filayaa inaan gudanayo mas'uuliyadda iga saaran tahay caawa meeshaan isku nimid Sheekh Maxamed Saydi aanu aqoon isu lahayn intiis markii wadanka xasilooni ka jirtay haddana aqoonteeda oo si dheer ah waxay noqotay markaan isku nimid markii wareysa shirkii Carta Maxamed Saydi waa nin geesi weeya nin dadkiisa iyo dalkiisa u damqanayo waa xaq darada diidayo waa lilaahi idaacadnimo ku shaqeynayo waa intaas anoo ku ogahay ayaa waxaan ogahay kale inuu ahaa dadkii yaraa oo anaga naga mid ah markii wadanka xasilooni daraka jirtay xabada dhacayso sawaariiqda buubayso ninkii naftiisa u huray oo xamarka degay ka mid yahay mudanayaal iyo marwooyin waad salaamantihiin dhammaan inta caawa halkan isku yimid waxaa kaloo caawa u hambalyeynayaa una bogaadinayaa walaalkeena mudane Shariif Maxamed Sayid oo dhowaan loo doortay gudoomiyaha banaadiriga SNU Somali National Union ama ururka ummadda Soomaaliyeed taasina waxaa dhammaan farxad weyn inoo ah Shariif Maxamed Saydi meeshii aan ku bartay waxay ahayd Yaman ayadoo martiqaad ay noo fidiyeen xisbiga banaadiriga ah Allahu naxariisto Abukato Raajis iyo asaga iyo injineer Muunye oo ka soo dhameeyeen martiqaadkaas madaxweynaha Cabdalla Saalax ee Yaman markaas ahaa isugu yeereen nimankii markaas xamar isku haystay oo markaasaan nimid ani waxaan ka mid ahaa raggii loo yeeray oo la martiqaaday oo dawladda Yaman martiqaaday barnaamijkaas reer banaadir aa dejiyey xisbigaas aa dejiyey oo madax ka ahaa ilaahay uu naxariistay marxuumkaas raggaana la jireen markaan isu nimid waxaa la isugu yeeray kooxii seestay oo khaasan dhinacan koonfurta dagaalka xun ka waday Shariif Maxamed Saydi wuxuu ka mid ahaa ragga tallaabada adag ka qaaday oo raggii wadanka markaas xisbiyaalkii xukumayay ka mid ahaayeen muddo badan la xaajooday odayaal u watay oo markii dambe ku guuleystay wadadii marka iyo afgood u dhaxaysay in si caadi ah loo maro oo la furo taas uu ku guuleystay ka mid ah intaanan waxaan haayo intaan idin maqashiinin anuu nin siyaasi mihi nin fannaan baan ahay shirarka oo sidaan qolada ma tago anaga runtii halkan runtii dadka isoo barbaariyey ama aan ku soo baxay waxa waaye beesha reer banaadir waxaan halkan u imid Shariif Maxamed Saydi muddo badan ayaan isnaqaan burburka intuu jiray waa isla socon jirna meel kasta sidoo ninka odayga sheegay way hadda hadlay nin isqarinayo ahaa nin ishorboodaya dadka ma ahan يا غدان ديليا ليش دوليا ديليا علي حولاد بانديليا
qaaliyo dhiibto ilmaan diidayaa umankiyo colaad baan diidayaa dadkoo bayl baan diidayaa dadkoo qaxootaan diidayaa dumar ooyayaaan diidayaa darxumiyo gaajaan diidayaa waxaan u malaynayaa maaragtay shariif soo dhaweyntiisa iyo dadnimadiisa iyo wuxuu u qabsaday intii laga sheegi lahaa walaalkayga Dr. Shariif Cabbaas iyo burci iyo Axmed Naaji intay sheegeen maartay waxa way aniga intaas ma ka dheeri kar haday murti tahay hadii ay eray tahay hadii awaanim ay tahay kulli ayaga maartay dhamay Shariif maanta ma aha organization yaro hadda dhashay ama hadda la abuuray nin mesela meehe wuxuu mesela urur taariikhdiisa aad iyo aad ay u dheer tahay oo la aasaasay sanadkii 1943 bishii 15 May ay April la aasaasay iyo mesela marka waa garan karnaa waagaas marka laga soo bilaabo ilaa iyo maanta xisbigaas waa hakaday intii xilligii markii kacaanka uu dhashay ilaa iyo civil warkii intii ka dambeysay intii ka horeysay haddaan dib ugu noqono xisbigaas wuxuu ahaa xisbi runtii taariikh aad iyo aad u weyn dalka Soomaaliya ku leh Shariif wuxuu naga rabaa garab macnaa inaan siino oon garabkiisa istaagno oo aan gacan ku siino dhaqanka anaga aan leenahay oo ah dhaqan nabadda ah maxaa yeelay dhaqanka nabadda ah dadkeena waa ku soo noolayn haddaad fiirsaan magaalooyinkan xeebaha ma jirto qabiil ku duulay anaga ma qabno waxaa sharaf weyn ah marka hore inaan magaca beelaha baajuun iyo magacayga shakhsiga ah hambalyo taageero iyo soo dhaweyn inaan u soo jeediyo guddoomiyaheena cusub Shariif Maxamed Saydi aniga waxqabadkiisa inaan faallo ka bixiyo marabi sababtoo ah saaxiibadeyda waxqabadkiisii iyo kaalintiisii kulli ka soo wada hadleen sidaas darteed intaas leh hanoogu ekaato aadan faraxsanahay inaan kula joogo xafladan muhiim ah waayo ana af Soomaaliga si fiican ma aqaan af Ingiriis aan ku af Ingiriis aan hadli doono as my Somali is not very good and my Chimini not at all. But I'm afraid. I will just say briefly, I'm very happy to be here. As you maybe know, when I did research in Somalia, I was doing research on the Galadi of Afgoye. waxaa halkaan maanta waxaan mid inaan taageerno Shariif Maxamed Saydi doorashada lagu doortay waxa magaalada Xamar anagana waxa waan taageersanaa waxa doorashada Xamar lagu doortay alxamdulillaah rabbil caalamiin aniga marka waxaan raynaa arintan kala saaro shay waa guddoonimadii oo Shariif loo doortay shayna waa qomeyda banaadir jacayl iyo wadannimo iyo waxaana ku socono waxa waaye waa wax taariikh leh oo intaasoo sano 1400 iyo 1943 waxa la aasaasay buu ahaa marka dowladda Ziyaad Barre 21 sano way xirneed 21 sano haddana way xirneed hadda soo baxday waxaan rabaa in dhaxal siiyo dhalinyarada soo socota waxaan runtii maxay ahayd ku faraxsanahay akhyaartan iyo ahbaabtan maxfalkan kariimka inaan isugu nimaado walaalkeen Shariif Maxamed oo si fiican looga warramo hadda aan meel kale uga naqdo aan lahayn ilaa inaanu idin sheego aniguna inaan si fiican u aqaano walibana howlo badan aan isla galnay
kuwa dhiblaya kuwa dhib yar iyo maxay ahayd wax walba aan soo marnay arrintu xisbiga keliya ma aha aniga waxaan isleeyahay shariifka maanta markii aniga talada ay taagan tahay ay tahay tayda ummadda soomaaliyeed oo dhan waa isku keeni karaa anigoo hadalkayga ka baxaya aniga saaxiibkay waaye abaal buu igu leeyahay shariifka siduu sheekii hadda ugu dambeeyey sheegay shariif maxamed sidiiqani in ugu filan aad u aqaana laakiin banaadir waxaan rabaa waxyar inay idiin xasuusiyo برنامج ير وهري نوقف على دار هذا السحين عن شيء هاي دقيست وأنا قررت دونتي مركان شيء ثاني دونتي وأنا ديجي مركان حمر جوجني وحسب جود أني بعده إلى إنك كانوا وأنا ديجي أنا جو بنادر هو بنت كي يقولوا بيرجع صوب عنا أما بس هيك ببتاع بينت بيرجع كصوب عنا ما بس كببتاع نقطة كي ترونتين marka nimaha busti waa ka buubtay balse waliba diinka ku celidada xamar iyo banaadir galidii sheega xamar kaligiisa ma aha faras blaas gambona turas aseer sidoo ninka walaalaheena maanta u dhawaaqay tuulooyinka taariikh dheer ay leedahay 1200 sano masaajid ayaan ku leenahay magaalada Baraawa ilaa hadda masaajidkaas waa dhisan yahay 1200 sano dad ayaa naga horeeyay حمرنا سلاس وكله ما ها بقول سنة كنتون سنة. رونهانتي تاريخ ذا بنادري ضد بدن بكبين شيئا وحالي نقول بشارين يا تاريخ بنادري إنه قرنت هاي من مارتي فاسك دقامة إلا إيو أنت كهريس إنه قرنت هاي بنهرت نقول بشارين وأنا دفر كريم وإذا عدها اللي شيء شيئين إن أنا مارتي وحبك الترينين وتاريخ الله صار نقول دونه مركز تبع هذا صورته كوب شعريستا تكلم واحد يدي شيء يا واحد عاو هالكن كفر حسنا هاي دكتوركا ولي مال وخد بينا ما أركين وباجلو شيء جاي فرحت بيتها عاونا المغلو نن دكتورا كواليفايدا أو مجا باجون كهلا مجا مثل لواد ونك لواد باجون كوانيكا شيء اسمعيو على اللي كل شيء الباجون هاي waxaan rabaa ganacsiga iyo siyaasadda ma kala maarmaan waa wada socdaan ganacsiga iyo siyaasadda anoo ku hadlaya dhammaan magaca ganacsatada iyo xawaaladaha Soomaaliyeed waxaan u hambalyeeynaa mudane Shariif Maxamed Saydi iyo xilka loo doortay خيارت هالك سكوت بد وحفظنا شرفت لك سوق بشيء وسلامتين دوانتين وحنا ملينا هذا بدن ميشان هرتي ما يالله ما دام هذا وهرلو يري خير لك ما قل ودل وحي لديه لا وحنا ملينا هري دتك نغا هري و شيغاي wax badan oo soo istaagin waxaan u soo istaagay wax yar anigu aad ugu faraxsan runtii saaxiibkay Maxamed Sayid وأنا أدرس نقاني إلى دنيرنمدي مركي تدواتمي وكشقينا فيرجينيا إلى هالدير أنس نقاني إنه يهاي نين كهبون وقت كان مانتي لتشوف وعذق ويكوشيلان ومدو الصوماليات قارهان ذات كبراندر إلى هذا وحن ربع إن نيشة وأرندان قدومي ماذا أضياشا ربنادر أو جوجا مقالة حمر يكون جوجا مقالة هل كان لندن يمالك على مدة شم بلاد ayaa habeen kasto telefoon lii soo diray qabso hogaamiye noo noqo shariif hogaamiye noo noqo ilaa heer waxay gaartiin duco iyo inkaar ama waa ku inkaarayna ama waa ku duceynayna hogaamiye noo noqo marka aniga aan ogolaaday isla markii xamar uma ordin halkaan aan imaaday London odayaasha reer Banaadir oo hadda Axmed Naaji u dhahay meeshan dadaa ka maqan midaan la hadlay mid waxay idhaheen Shariif nin istaahilo ayaa tahay jagadaas shakhsi hal iska dhaafo reer hebel waaye ninkii nabadda gacanta naga saaro ninkaasaa walaalkeena ninkaasaa madaxweynaheena ninkaasaa ra'iisul wasaaraheena waxaa sidoo kale gudoomiye Shariif Maxamed Saydi soo dhaweyn sidan oo kala loogu sameeyay magaalada Manchester oo isna halkaas kula kulmay
jaaliyadda banaadiriga iyo weliba jaaliyadda kale ee soomaalida oo iyana halkaasi kasoo qayb galay munaasabad soo dhoweyn loo sameeyey xaflado ay ku taageerayaan xisbiga SANU isla markaana ay ku soo dhaweynayaan gudoomiyaha cusub ee xisbiga SANU Shariif Maxamed Saydi marka ugu horeysa waxaan idin sharaxayaa sababta ama ujeedada ay jaaliyadda Manchester isugu timid halkan iyagoo soo dhaweynaya gudoomiyaha Shariif Maxamed SANU taa waxa weeyaan maadaama xisbi oo laga guuray 4.5 kii qabaa'ilka Soomaaliya burburiyey laga gudbay loona gudbay geedi socodka xisbiyaal wuxuu ka mid yahay xisbi ka ugu horeeya oo sharciyeysan oo jira ayuu ka mid yahay waana xisbi beeraha degan shabeellada hoose jubooyinka ama banaadir degan buu masalayaa Soomaali weyn guud ahaana ayuu u hambaqaadayaa xisbigaas banaadiriga ama xisbiga xamarweyne yacni ee hore u jiray ee 20 sano ku baaba'ay ninka soo nooleeyey ayaa marka soo dhaweynaya anoo ku hadlaya magaca Soomaaliyeed oo Manchester يعني جالية الصومالية ما جالسة جوتا أفكار أو قاضي حسبك SANU وبنادري مسلايو قبل أهم جوالي الشاقي قبل كبنادر وحاك بلاونا أقل إلى رجال دل بنادر اللي يجري هذا قدومي رسمعان وعلى صدورتي اللي بان شريف محمد سيدي أنا أقول رأي ملع إسبورتيغا جريتر مانشستر waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga ama ururka SANU marka waxaan rabnaa annaga haddii annaga aan nahay xisbigan cusub aniga laftiga memberan ka ahay sababtoo ah dhulka oo xukumo oo dhan marka waa dhulkii anaga aan awoowayaasheen ay ku dhasheen marka waxaan kaa codsanaynaa in ururkaagii uu ku dadaalo cadaaladda sinaanta iyo kala dambeynta oo respectiga munaasabadaha markii ay dhamaadeen ama ha noqoto mid London amba tan Manchester ayaa waxaan la dhexmaray mikrofoonka qaar kamid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabada waxaana iiga waramayaan dareenkooda ku aadan xisbiga SANU iyo waliba sida ay u arkaan gudoomiyaha cusub Shariif Maxamed Saydi caawa waxaan u maleynaa qiiradeeda aad bay u kacsan tahay maadaama aan arkay ninkii ugu horeeyay gudoomiye ka noqdo SANU SNU oo banaadiriga ka tirsan runtii isboortigaas oo ku mashquulsan laakiin markaa waa markii hore siyaasadda ka soo qayb galo waa ninkan sidaa u arkay ama sheekooyinkiisa markaan dhageystay waa ninkii kaliya banaadiri ma ahe Soomaali dhan ayaa la sheegay inuu isku keeni karo waana taageersanahay waana ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladiisa waxaa sharaf weyn inaan ka soo qayb galno xafladda musharaxa gudoomiyaha ururka SNU Maxamed Shariif Saydi runtii sharaf weyn loo tahay waxaan aaminsanahay dadkan hadee u istaagan Soomaali inay nabadeeda soo noqonayso oo dad lagu aamini karo inay Soomaali yihiin halkan waxaan uga taaniidinayaa ama hambaliya u dira aan ku taageerayno gudoomiyaha cusub ee la doortay jaaliyadda banaadiri jaal Shariif Maxamed Saydi oo caawa halkan lagu taageerayo doorashadiisa ka dhacday xamar waxaan jecelnahay kulligeen haddaan nahay maaragtay jaaliyadda ku nool UK Soomaali UK diaspora gaar ahaan jaaliyadda banaadiri taageero buuxda oo aan siinayno gudoomiyaha cusub anigoo ah Sayid Axmed Maxamed Cali oo ana ah dhalinyarada banaadiriga joogaan UK waxaan u diray dhambaal tahniyad ah mudane Shariif Maxamed Saydi farxad gaar bay tahay ka soo qaybgalkan taageeridda gudoomiyaha cusub ee SNU waxaan u rajaynayaa guulo fara badan iyo inuu qowmiyadda ku hogaamiyo wadada saxda ah magacaygu waa Maxamed Shariif anigoo ku hadlaaya magaca qowmiyadda banaadir magaca fanka iyo fanaaniinta Soomaaliyeed ee caawa xafladan lagu maamusay mudane Shariif Maxamed Saydi oo loo doortay ururka SNU qowmiyadda banaadir ma aha qaran dumis laakiin waxa waa in ummadda Soomaaliyeed ay isku keento
sidaan hore idinkugu sheegay waxa waaye waxaa loo baahan yahay Soomaali inay mudoodo waa mahadsantiin waa tahay daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkii gaarka ahaa aynu ku eegaynay soo dhaweyntii iyo weliba taageerada loo fidiyay xisbiga SANU ee uu gudoomiyaha ka yahay Shariif Maxamed Saydi tan iyo kulanti dambe waa aniga Ibrahim Cumar Baafe nabadgelyo